بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعد سلطان عبد الله محمود مامولها معهد من Institute for Political Science and Knowledge معلن كترسن معلمين تلقى معهد من Institute for Political Science and Knowledge. ما أنت وحرنا إن شاء الله 10 كأفراد إنه شرحنا 10 كوري وطن صادقني قابك كمبني الله أبورو قابك دينتا وحوي لو فتشي أو كونترسيف بالك كويك بوكا يقابك إنفنتوري الله وحوي لو قليو أو لو دوان قليو. ما أنت وحرنا إن شاء الله إنه نقبل قرينه قابك loo waafajiyo kuwii kabuuka deynta lagu leeyahay macaamiisha deynta lagu leeyahay company-ga oo loo yaqaan account payable kaasaan rabnaa in aan analyze gareyno bal reportkeena aan tagno casharo hore oo inoo socday qaabka inoo marayaan company and finance-ga waa inoo muhiim in aan la socono balance sheet-kana standardka meesha uu inoo marayo meel xal u joogo in aan la socono bal waxaan analyze gareyno casharadii kuwan ka horeeyay oo taasoo dhignay waa ujeedaano account receivable baan haynaa oo 1200 ah total account receivable ko deynta macaamiisha ka maqan deynta company-ga ka maqan macaamiisha ku maqan 1200 ay tahay other current asset inventory asset ahaan waxa inoo yaal 4800 total asset keenu waxa waaye 5900 total asset ka markii la yiraahdo liability equity maanta liability ma jiro 10 ka rabnaa inaan maanta analyze gareyno weeye equity waa jira obayna balance equity waa jira oo 5900 ah xisaabteena sidaas isku leegtahay marka xisaabta inaad la socoto 5900 markasta aad ogaato bal meel uu xal marayo maanta waxaan rabnaa insha Allah bal inaynu abuurno company and finance casharkii macallinkii ka horeeyay wataan ku soo sheegay make general journal waa meesha ugu muhiimsan oo shaqada laga qabanayo make general journal waa meesha week book oo ka kala socdo akoomada lagu geliyo lagu analyze gareeyo haddii khalad yimaado xataa adjustment lagu sameeyo lagu habeeyo marka waa muhiim marka cashirkii kankii hore waataan soo dhignay qaabka loo analyze gareeyo marka maanta waxa leenahay maadaama aanu abla-gareynayno maadaama aanu analyze gareynayno ama maadaama aanu waafajinayno kuwii buuka deynta lagu leeyahay company-ga kii ka hore maxaan soo waafajinay kii ka hore waxaanu soo waafajinay qaabka deynta ka maqan shirkadda kuwii loo waafajiyo marka maanta casharkaas rabnaa inaan la garino opinion balance waa kan waa iskeenay markii account receivable-ka aanu joognay deynta ka maqan company-ga waxa la oran jiray credit-ka la gelin jiray credit-ka waa loo gelin jiray credit-ka waxa loo gelin jiray macnaha waxa weeye waa la badin jiray maanta iyaga deynta lagu leeyahay oo iyaga laga yareynaa for example oo kale waxaan kaga yareynaynaa for example oo kale $500 $500 iyaga lagu leeyahay marka maxaa leenahay waxa leenahay accounts payable maanta account payable kaas aad loo analyze gareeyay wuxuu yiri account payable ama accounts payable ma aqaan buu yiri set up hadda barboy hadda baraan leenahay dadaan aqoon okay baan leenahay sidii caadadiisa ahayd categories macnaha meelaha uu galayo ma income ba ma expense ba ma kharash ba ma dakhli ba ma fixed asset ba ma bangi ba ma loan ba muxuu yahay waxa leenahay inta midna ma halkan afarta gelinaynaa halkan aan ka helaynaa account payable accounts payable halkan ku sheegay account payable maxaa waaye waxa loo soo gaabiyay a b kii horena CR ba loo soo gaabiyay track is money your way to the funders for to purchase made or credit wow funders maxaa la yiraahdaa funders waxa weeye waa dadka adiga deynta ku siiya oo adiga macaamiisha aad adigu u tahay for example kala ama waxa la oran karaa suppliers dadka aad wax ka soo qaadato for to purchase wax ka soo yeeto made or credit aad kaga soo aado most business require only the AB allow by account to quick book automatically creates isaga abuuray continue in order oo noo si abuur sida markuu yiri waxa way waxba hadda inuu ku adkay safe and close safe close markaan yiri deyntan yaale marka name deyntan cid la sheegaysa for example kale maadaama de company-gan oo product yahay waxa wax ka soo qaadan karnaa oo kale for example tawfiiq oo kale
توفيق company توفيق product توفيق for example oo kale توفيق product company ayaa waxayna ku leedahay 500 oo ka soo qaadan iyada nagu leh marka saas un baa leenahay haddaan rabno inaan mid kale abla gareynana waxaa leenahay Stefan Carlos added quick book yiri توفيق product company garan maye ibar buu yiri haddaan ku barayna select is the name of the added click macnaha inta keeway ma vendor ba waxa way dadka waxa way adiga deynta kugu lamiya ma customer ba macaamiishaadiba ma shaqaalahaagiba ma adar ba waxa waa vendor okay waan leeyahay saasa waxaan ku leeyahay Stefan Carlos macalin casharka account payable ka waxa la yiraahdaa waxa weeyaan waa company-ga ama organization-ka deynta lagu leeyahay cidda kule baa la suppliers ama vendors bal aanu fiirina maxaa iska bedelay balance sheet-keena oo markasta sida aanu la socono balance sheet-keena way noo muhiim balance sheet-keena account receivable-ka waa 1,100 total account receivable-kiisina waa 1,100 waxba iskama bedelin inventory asset-kiisina waa 4,800 oo halkaa wax isbedelay ma jira maanta maxaynu ku soo kordhay liability and equity liability halkaas soo ma jeedo deyntii current liability account payable account payable wuxuu galaa waa liability waa $500 $500 baa waxay tahay total current liability $500 equity opening balance-ga waa 5,400 halkana waa 5,900 waayo de halkan waa 5,900 5,900 hadii laga jaro waxa weeyaan 500 5,400 weeye bay leeyihiin oo labada waxa weeye $500 baa ka go'aysa opening balance equity-ga opening balance equity maxaa waaye opening balance equity waxa waaye waa dadka shirkadda business-ka shirkadda lagu furay ama lagu aasaasay dadka lacagta iska la way ama hantiilayaasha ama stakeholders-ka ama shareholders-ka hadba ka u taqaan marka sida ayagu kala qaybsan doonaan insha Allah casharadan baan ku sharxi doonaa hadduu Allah idmo macna hada barlabaadku uu celiyo waxa tagaysa company marka tagto make general journal ba tagaysa make general journal marka tagto halkaas aad ku qorayso opening balance kadib halka waxa ku qoraysa directly hadda waa garanaya account payable direct waa garanaya gali waxa gelisaa $100 gali halkana waxa gelisaa maadaama account payable waxa gelisaa isaga isgelin lahaa cidda kugu leh ama cidda kugu leh shirkad for example kale waxa igu leh for example kale qof baaba igu leh waxa igu leh for example oo kale nin la yiraahdo for example oo kale Maxamed Faarax oo kale Maxamed Faarax ayaa uu leh saa soo wuxuu leeyahay Maxamed Faarax garan maayo waa inuu hadda bartaa kuwii ka gwaaleen hadda automatically Maxamed Faarax waa vendor baan leenahay okay baan leenahay Stefan Carlos baan leenahay bal hadda balance sheet-keena aan noqono bal hadii wax iska bedeleen hadii kala aan fiirino balance sheet-keeni waaba joognaaba current liability-gi isma bedelay account receivable-ka 1,100 inventory-giisina waa si waxba isma bedelay waa 4,800 halka waa 5,900 hadda account payable-ki deynta shirkadda lagu lahaa maxaa ku siyaaday 100 boqol ba ku siyaaday marka hore 500 ba ahayd maanta 100 ba ku siyaaday 600 ba tagtay opening balance equity dadkii hantiilayaasha lacagtooda maxay noqotay 5,300 bay noqotay oo meesha waxa way deyn baa soo gashay marka sida daraadeed totalka guud total liability total equity maxay leeyihiin asadka xisaabtada waxa la rabaa halkaas 5,900 ila isla ekaato hadii kale xisaabtada error ba ku jira marka total liability and plus equity waxay ku leegtahay total assetka 5,900 waaye waxa weeyaan sidoo kale waxaan fiirinaynaa bal aanu fiirino bal waxa weeyaan bal profit and loss keeni wax isbedelay jiraan iyaguna never you say
iyadoo wax isbedelay iyo wax yimi ma jiro, waayo weli waxaan ku jirnaa base-ka shirkadaan ku jirnaa. insha Allah casharkeena maanta intaas ku saabsan yahay inaan macala casharada la socotaan oo aan la isgareysaan, sidaas loo baahan yahay. Assalaamu calaykum.